kusoo dhawaada qayb kale oo ka mid ah taxanaha aanu ka duubaynay General Maxamed Nuur Galaal oo ku saabsan barnaamijkan xusuus reeb qaybtii u dambeysay intii daawatay waxa isugu kale dambeysay iyadoo magaalada Muqdisho uu yimi nin sare oo ka tirsan ciidamada wadanka Ruushka oo magaciisa uu idin sheegay oo Marshal ahaa isagii Cali Samatar safaaradda loogu yeeray loo dhiibay barnaamij cusub oo Ruushku uu ka leeyahay bariga dhexe iyo geeska Afrika labadaba General Galaal hawl ayaa markaa loo diray halka ayay noo taagan tahay Maxamed Nuur Galaal mar saddexaad iyo mar afraad ba ku soo dhaw barnaamijka xusuus reeb halkaas ay noo taagneed galasaha maxaa ka dambeeyay waxa ka dambeeyay waa markii uu dhoofay ninkii intay Maxamed Siyaad arkeen ayuu ii yeeray Maxamed Siyaad waanu tagay Cali Samatar baa ag fadhiyay iyo geeli oo banduule markaasuu yiri waxaan siyaad oo igu tuuray wuxuu yiri hadee waa ku faraxsanahay ma aragtay in gaalkii nimankii Ruushka inay ku soo magacaabeen oo jabhadii in la abaabulo oo adigu ka shaqaysid ay ku soo magacaabeen markaasuu sii wada wuxuu yiri oo kaalay maxaa jira gobonadonka miyaa adigu awal wax ka soo baratay markaasaan yiraahday waa hal sano dhan aan ku maqnaa baashaad oo maxaa iigu sheegay wadooyay maxaa ku sheegay wasiirkaaga la rabay inuu ku sheegayo saraakiisha waxay soo kala barteen iyo waxay kala yihiin iyo waxaas marka weydii wasiirkaaga oo maxaad kala soo baratay waa isii raacay oo adigu oo isii qodoqoday waxaan markii dambe isla garanay inaan hawshii adwado aan wado waxa uu yiri ana odayaalkii u yeeraya maantaan u yeeraya adiguna berri bilow inay ma aragtay raggaas aad aruurisay iyaga ku keenayeen in la diyaariyo markaas sidii Ruushku cusub Soomaali galbeed oo la dagaal geliyo si loogu tababaraysto Itoobiya in dagaal loogu qaado waad markuu yiri hawshaas aad galeysaan okay hadda ogow hawshaas nimankan gobonadonka markii la diyaariyo ayagu waxay ku filnaan doonaan inay miyiga iyo ceelasha iyo tuulooyinka ay ka soo jafaan ciidamada militariga maaragtay iyo booliiska maaragtay dawladda ay markaas la dirirayaan way oo isugu keenaan magaalooyinka waaweyn waa nidaam qoran oo jira markaas ayaa ayaga hawshoodu dhamaanaysa oo iyagu magaalooyinka kama saari karaan hadda markaas ogeey baaneey waxa loo baahnaa doonaa in ciidanka xoogga dalka ay gudaha galaan oo nimanka magaalooyinka ka saaraan waad oo masaas weeyaan hadday ansaasan hadda ayaan isku lugoynay dadkana ayaan ku leeynay waayahay waa yeelaynaa hadda markaasaan bilaabay laba dhinac baa jabhadu ahayd mid waxay ahayd dadka Soomaalida ah midna waxay dad weynahan Oromada oo Soomaalida gadaasheeda degan oo u bixiseen Soomaali Abo way u bixiyeen waxa watay kuwa asalkooda uu Soomaali yahay nimankan lagu leeyahay Oromada nus baa Soomaali ah marka waxa loo yiri kuwa Soomaali ah laakiin Oromada ah marka sayra anagu kulligan Soomaali baana kuwa saakeen magacaan Soomaali Abo waaya wixii noocaas ahana waxay ahaayeen qayb wixii Soomaali runtaana qayb kale ahaayeen marka kuwaas hore oo Oromada ah mar nagu soo qamaameen adigu hubban u aruurinay waa hubaynay hadiiba waa celinay week iyo amal waxaan haynay waxaan niri dhulkiina taga waxaad iska eridaan nimanka ma aragtay booliiska iyo waxyaalahaas iyo nimankii landlord la dhihi jiray oo dhulka qalaadada iyo dhulka waaweyn lahaa dadka haystay beerihiin iyo wixii ka eriyada oo gadaal u eriya dhinacaas u eriya Soomaalidiina markaan soo aruurinay
waxaan u furnay tababar hal sano qaatay 2 meelood baan ku tababarnay meel waxaa la yidhaha Qorilow oo xamar bay 70 kilomitir waqooyi ka xigtaa waay meelna waa Agabar baa la yidhaha Hargeysa ka xigtaa 50 kilomitir waqooyi ka xigtaa waay meeshiiba 1300 nin baan ku tababarnay markii waqtigii aan intaas dawr waxaan marnay sida markaas saraakiil ciidamadaada ka tirsan ha militariga ha ayaad u dhiibtay ayaan u dhiibnay oo iyaga lafaantooda waagii hore ka yimid xaggaas ka yimid waad marka golahoodii dhexe ayaan marka hore tababar u furnay wixii baan uga sheekeynay laakiin weligii inay gobonimo qaadanayaan kalaba aan hadlay waxaan kala hadlaynay si dhulka u xoreyn lahaayeen markaan ayagii dhamaynayaan ciidamadii aan xiraynay u furnay haddana sida wax loo qarxiyo sida wax loo gaado sida wax ambush loo dhigo sida kan la adigu bog dhan baan u akhrinay iyadoo akhrinay waay aad iyo aad bay u tababarteen aad iyo aad markii 9 bilood inta la joogo oromadiina ay waxeedii jaftay oo dhulku hadda cidlo ka yahay nimankii xagga oo waxa weeyaan markaa 1975 markaa bilowday ilaa 67 ilaa 67 horaantiisa hal sano iyo 2 sano ku dhawaad ay qaadatay inta nimanka jafayno ayaga tababareynay hubka ruush baa keenay hadba waxa imaanaya nin East Europe ah oo ku qori wada oo asaga soo diray warka qoryahan baan idin keenay hadaan dawlad hebelnahay aniga waa gartay Hungary way nooga yimaadeen nin generaal ah ku qori ii keenay waxa leeyahay oo wuxuu yiri markuu yiri ninka galaal la yiraahdo warway kana aanir kunkan qori baan ku wadanaa uu yiri waxaad siinaysaa uu ku yiri markaa jabhadii way Czechoslovakia ku ila dhihi jiray kun kale keeneen qolaa oo waxaan u maleynayaa inay Bulgaria ahayn Bulgaria ayaguna dhowr boqol ay keeneen war hub waa ka buuxsanay marka qoryahaas waa ku ruushku sameeyay Soomaa qola walba ruushka horta hubka dhan isaga laakiin waa hubka automatic ma ahan waa hubkan saas loo rido la gooyno doonka automatic waa fiicna haddii ba iska dhamaynaya rasaas ay dhamaynayaan haddii automatic loo dhigo inta yasaya marka qoryahan waa qoryihii saas waxa kale oo noo weeliyay kun qori oo 303 ah kii Ingiriisku sameeyay oo aan Sacuudiguna soo siiyay aniga Cumar Carta naloo diray waay Cumar Carta wasiire ayay aniga naloo diray waay marka kun qori baan ka fahad laftiisa oo markaas ah prime minister ayaa kuwii Ingiriiska soo siiyay ayaana soo siiyay kunkaasna waa noo yaalay war hub waa ka dhareegnay nimankii siyaasiyiinta ee WSLF shabhadda xoreynta Soomaalida galbeed magacaas la bixiyay mar horena dee hore u jiray oo muddo kala daadsanaa militarigan aad tababaraysan iyo siyaasadii iyagu magaranaysa aad ku abaabusheen say isaga soo horjeedeen waxa weeye waa aniga ku sheegay profession ahaan dagaalan barnay siyaasad waligeey kala hadlin marka dalkiina xoreysta midaan dalkiina xoreysanayna ayaan iray laakiin waxa laga hadlay xoreynta ka bacdi maxay noqonayaan ma dawlad noqonayaan ma dalkaani ku soo biirayaan taas baabkaas waligeeyba ma aan furin way afweyna uu yiri taas kala hadlin bal kala hadlin ahla wasahla ayaguna lama weydin marna marka hadduu meesha qabstaan Soomaa in wadanka ku soo biiro ayaan markaas u qaatay anigu markaas waxaan u haystay in dalkaanu markii uu xoroobo oo dalweynaha Soomaaliya ka mid noqonayo hadda doon xidigtii shanaad noqdo saddexaad saas u qaatay adigu saas anigu u qaatay iyo amarkii lagu siiyay nooca maxaa sameysay markaad ciidankii tababartay waa tababarnay waa gelinay kuwii xagga ahaan ku soo bilaabay safar dheer bay soo galeen nogob meesha la yiraahdo qarri jiqood baa la yiraahdaa
waa dhul hawdahoo ها halkaasay xarun uga dhignay واي markaasay markii amarka aan siinay soo bilaabeen dagaalkii kuwaas markay bilaabeen ayaan kuwii halkaana aga barjoogay ayaan ayagana habeen madow gelinay واي maqrib konton baabuuraan Hargeysa احمد قري ولا اورن جري سوما may dhuunqabad ها dhuunqabad baa la dhihi jiray واي خطر بها ya واي waxaa maqribkii baan ka soo kaxay agabar اغبر halkan hal saac baan mariyay fiidnimo wada halkaan oo tuulo la yiraahdo Ararso oo wadada ku taala ها ayaan halkaasan awal baan 60 awr ah ayaan 6 bilood ka hor diyaarinay oo ka soo gadnay sasamana iyo shaw iyo halkaas iyo bulaale واي heeryadoodii kabaaladoodii waxoodii ay wataan halkaas imaada saacaday halkaas yimaadeen galabtay yimaadeen ayaan kuwan halkan ka dhaqaajiyay waxaan soo geeyay agabar baashi Ararso tuulada Ararso la yiraahdo ارصد جيس Ararsan geynay halkaas wadada ka gooyeen waa baxeen baabuurtii halka aan ka qaaday waan ka kontanka ahayd waa ku geynay isla wadii soo noqdeen كنتم باور بدنا كرافتي konton baabuur baan halka ودكو قادين aan ku qaadnay waad soo dhigteen markii hore uma sheegin waxa ay qabanayaan markay tageen Ayaa oo laga- soo noqdeen ayaan casuumad u dhignay casuumad baan u dhigay gurigii state house-ka halkaas ku yiilay ayaan casuumad u dhigay waxaan idin yow raalli ahaada haddii wuxuu qarsoodi bay ahaayeen waa ogtihiin ilaahayna waa idin nabad keenay muraadkii Soomaaliyeedna waa fulisay باور شعبي هاي سوما baabuur sharci baa ilahay dadka lahaa ضفت كرافتي dadkan ka raafnay baabuur waliba efficienta ah سرع الدرب دي باور ده اللي جوبه ما حبشوا ما هذا وبختي ونصيب بإسكاهي أنا أقول أكو تلاقي لو حنا نروى جليسان إسلامين هذا صون ونيسان ولحد أرورنبو وأنا كل هرجيس شوكتان أمر كابساسها هل بابور با نجحوا بعضي وجايين وصون نقدين أورتي بيكوري شينا ويودين مال علاقة باللي يرحدوا وتولدس 60 كيلومتر halkaas ka jirta halkaas u daad guraysay lagu gadaad guray awrtii waxay galeen inta u dhaxaysa Baabil iyo Harar ay galeen dhoon qabad halkaas ay qabteen ciidamada Itoobiya nafar kaliya oo wadadii maraya male waana huwaysnaayay yaa watay sargaal oo weyteenaho ديرو يوسف علي بري دير يوسف الله يرحمه ولد ما دنتي شو كل انت هنا ديرو ما حد المسكن انت كيورا باور يا امبلاس بشيري ما waxa kulli waa dhintay waxa ku xigay Maxamed Cali oo operation ka xisaabsana waxa ku xigay Maxamed Cali Nuur mid la yiraahdo hawiyahan galbeed ah oo saad ka xisaabsana inuu dadka ka soo arooriyo cunto iyo badar iyo wax walba ka soo arooriyo oo nimanka meesha lagu masruufo saddexdaas nilan ayaa loo diyaariyay nin walba kursidiisa gaar u qaatay Maxamed Cali nin balaayaha ahaa ninka sargaalka aan u dhisnaa sahanka iyo caasoon awal kala shaqay jiray iskala shaqay jirnay weyteen ايوه يوسف محمد عبدي يوسف دير la dhihi jiray miyaad aragtay isaga wana qaani bas halkaas ay mareen halkaas ay galeen wax dhaqaaqa ciidamada waa loo keenay waa kuwa kalena u soo wadan magaalooyinkii ku keeneen goday Qabri Dahare dhagax buur intaas lagu soo aruuriyay ciidamadii marka ciidamadii Itoobiya tuulooyinka iyo iyo booliiskii iyo civil maamulkii civilka ahaa jabhadahaas soo ururiyay kulli waa soo aruuriyay magaalooyinka waa bal soo xad sameeyeen marka hadda waa sidii ballanku ahay waxa ay madaxweyne jabhadii xilkooda waa guteen ciidankii hadda waa adaa laga sugay adinka leeyahay ka sugaya ما مركز ويري وايا وأكون قاقينا مرك هالكاس عن مرينو أي روشك إسبدلي ما حد عاي من قصة وصوب حي حال الثلاثة ولا الردي
ولا ردوا دلي وحلايو كلا هدنا وح الله يوحي نوكر هاجريو دولدي حين ثلاث قلبي جنرالدي جنرالدي نين لا دهي جيري اغلول فاملي وين waxa jira agluli habti walda la yiraahdo oo 40 sano prime minister aha boqorku ku xiga boqorka taajir beeraha dhan nin kale waxa uu balay agluli buu dilay wiilashiisii uu laayay Mengistu ama aan doobkina dhibi jiro ku sheegay ayuu dilay ku xigeen waa markii hore منه وحو ما يوحو أمان عندهم ننصروها ورون لكن قرضي الله انقلابتي حيال 3 سنة وكسرين انت مدري كور وما هين أمان عندهم أمان عندهم ما هاي من جستو كحيجين شو عمر صما ما هاي واي من جستو كلو يري كا قاشان ليالي قاشان لا دحيالي وحاسو كدغه جيري markasta ninkan prime minister laga dhigay Amerikaanka watay Amerikaanku waxay dabcan ninkan yarka soo baxsanaya inay oo si u maareeyaan oo si u qabtaan markaas ninkan amaan aan doom inta keeneen ayuu dawladda u dhiseen markaas wixii agluulu xataa iyo waxyaalihiisa iyo wixii lagu soo dabaalay eber buu ka dhigay 40 buu hal maalin dilay oo dawladdii ama wasiiradii oo iyo amaankii dawladda xayla salaasuu dhigay baabash way marka maxaa dhahay wuxuu salka saartay Mengistu oromada waxa jiray xisbi la dhahay Mayson oo oromadu ay lahayd way nin professor Hayle Fida la dhihi jiray ayaa xogaya guud ah way ninku maawist anti ruush buu ahaa way Mengistu maawista laga dhigay markii hore way halkaas loo jeeyay waagasna daruush iyo shayna lisma tuso dab iyo bensin markaas si xanaaqeen ruushki oo wixii ka area nagu bilaabeen markuu arkay Mengistu inaan shiinuhu markaas miisaami karin ruushki ayuu go'aan gaaray warsaday inuu xagga tago waa laga ogolaaday Brezhnev uu tago loogu qabsaday buugaana waxa rabto ku qoro nimankan iga xili war nimankan iga xili isagii baa u tagay ruushki wax alla waxa rabtana waa sameeyay aniga waxaan haynin oromo ah oo dadkan la gubaysta oo la takoora oo jareer oo kan balaada dhan oo sheegtay aniga wuu yiri ninka hanti wadaag dhisi kara maahan Maxamed Siyaad aniga waxaan beeraley xaqana beeraleyda iyo waxa laga yaqaan iyo shaqaalaha ayaa laga yaqaan laga yaqaan what anaga waa inanka ku fiican inay hanti wadaag run sameeyaan Brezhnev waa rumaystay way markuu rumaystay markaas ay nagu soo bilaabeen inay nala hadlaan ruushki way oo yiraahdaan meesha ka caan baa ka dhashay kanaasana ah in cagta u dhiga joojiya xageen markaas maraynaa meel aan waxaad maraysaan inaad soo xareysaan ciidamadii oo dhan oo aad magaalooyinka waaweyn keentaan wixii Itoobiya lahayd idinna waxaad diyaar u tihiin meel ciidankii rasmiga ahaa inaan gelino gelisan magaalada yaan diyaar joojiyadii ruushka way joojiye markuu yiri waa la isla hadlay xageen ku joogsanaa markaas la yiri intaan Mengistu iyo ruushku isku ilkaysan oo yan si fiican isu dhex gelin amba ha shaqaarajino okay waxa la yiri ciidanka marka la diyaariyo operationka la qoro xagee tana waxay noqotay hadana mucjis meeshi general staffki xafiis mal waxa fadhiyeen ruusha oo la taliya ma garanaysaa wax walba oo ogyahay waa ogaanaya waxa la laga qariyo si looga qariyo ruush illa meel walba fadhiya aqirtu waxa la inta qorshaha la qorayo ha laga qariyo hawlgalka wuu ogaanaya marka ciidanka la dhaqaajiyo wuu ogaanaya illa ciidanku dhex fadhiya yu urooba nin gaashaan laha oo experta ag fadhiya haye سيلا
وحال وإن لها هل قف أو وحاس وحنا كي يقانا آدو يقانا وحا كلان أو فهمي كرا معناها عيدا كدول كان قرانية يسي الله عركي عيدا كعركي وحا فهمه كله كي بدا سيدو كله وإن النوع عاصل لها ولا سرار هذه ولا سرار هذه سوان ترى اللي يري ماركتي سرار هذه أنا وإيه يا ري مركز يقول ورجلا وحكونا ما هينه قال أنا أسوق نسكوا في علن سوان ترى ما يلا يا ري أنا ما يلا يو نكى كلو ثلث أداء أنا وقونا بدنا كشقي هوشة صديق درتين أسكرتي يوحي وان ديار صديق هالكاس مريسة أحد كان صاصة فورو توحور نكي واديتي وهي يا ري حاسس يا برك ويا ولا بدعوي ولا يدعوي وي maxaa ku diidaysaa wixii aad bilowday dhammaadkeediina inaad wadid maxaa ku diidaysaa war anigu waxaa yidhi ciidankan intaan la eg anigu ma fahmi karo maaragta xaruntii hadhow ciidanka markaa Soomaalidu dowladda ay lahayd ilaa 60 kun ma lagu qiyaastay may 35 kun ciidanka dhulka ahaa way 5 kun cabalana waxa ahaa labada kale oo Air Force iyo Navy ayaa ahaa marka kontomeeyo kun buu oo laakiin adag waliba ciidanka dhulka aad u adag oo hub fiican haysto intii waana ku sheegay admiral baan soo dirayaa buu yiri oo soo diray markaas uu details wuxuu noogu sheegay hubkii aan rabnaa waa u dhiibnay wixii aan rabnay markaas waxaan u baahnaa oo ciidanka marka waa marka imaanayso mikow iyo 20 waa marka neebigii la keenayo gantaala xambaaro ewl waxaan haysanay kuwa oo torbeedada yar bad haysteen ayaan haysanay oo 6 xaba ah 6 kale waxa la keenay gantaala xambaar ah oo 50 kilomitir ayuu wax ka duqeynaya waxa la keenay madaafiic aan hore u haynin da soddon iyo bilaay waxaan hawsarkii loo jirnaa da soddon boqol iyo 22 da soddon dal xoreeyaa loo baxshay mid waan garanayaa markaas intuu arkaday dhulka galo markuu gudaha hoos u dhac qarxi jiray waa saas waa hadba rasaasbuliyo la dhacay meelaha qaar oo taangiyadii dhulka ku asnaa samada u soo tuuray maxaa la oran jiray kuwa ma waxa weeye rasaastay ku xiran tahay kan speciality-ga uu leeyahay waxa weeye madfuuc saas markii loo dhigo qaar waxay leeyihiin hal aagaas intaas wax ka dilaya ka riday haddii la dabco in aag kale loo jeedo waa in la qaadaa oo la xamaala waanu culus yahay oo jaha kale loo jeediyaa kan ma aha 360 degree ayuu wareegaya adoon far saarin bismillah ayuu wareegaya qor fiican waa fiican absolutely hadda meelahan oo xarbiyadu ka socdaan asagii lagu dagaalamaya orgaasa yimid iyo BMK oo 4 xabaan wadanay oo xabasho dhan iimaanka uga qaadnay 40 xabo noo soo diri lahaa 40 Afrika dhan ku qarqay ayaa oo kuwan sida bahalaha u duula ayaguna soo marka asab soo marayaan meel la siman ayaa xaalka iyaga isku xumaaday markaas asab loo leeshay 40 haddii 40kaasna soo gaari lahayd borka kaane ala kul xaal warninkii la raadinay aniga u noqday فين وحبيبي دج بالغ قرشي طلع على مقابل الله محاسبه يصير مركب اوفر يستد ما سبعي اوفر يستد مالكتي قال كا الى جوجا كورنيل با الى جوجا كورنيل كاس عباره waa sheekaysanaa habeenkii baan shaqeeyaa nalka inta shito marka maxay arkeen way inkaaray qabaan nalkayga habeenkii shida xafiiskayga waan ogyahay wuxuu oran waa ogyahay in la ii diray oo li adigu ka shaqeeyo
markaasuu adiga tabaarash galaal halkaa washidna uu leeyahay subaxdii markuu markaasaan iraahda war shalay markaan tegayaan ku ayaan ku ilaaway inayan isbixinaynaa la ogaaday meel cidlaha la ii raray duur halkaas oo magaalada barigeeda ah meel xor xaafis halkaasaan 3 bilood fadhiyay oona gurigaygii tegin oona xaaskaygii arag waxaasaan qorayn operation kii baad sameynaysa marka lagu qaban lahaa Ethiopia iyo qoraalkii iyo qoraal on content page ah ayaad samaysay ayaan sameeyay maxaad ku tala gashay marka halkeed sida wax bilowd dad yar noo dul marto waxaan dul maray waxay ahayd laba face ayuu ahaa face-ka koowaad waxa weeye dhinacaas koonfurta xigta yacni goday iyo qabri dahare iyo dhagax buur horta face-ka hore in lagu leefo kaasu detailed buu u qornaa si general ah waxaa u meeshin garaysnaa face-ka labaad oo ah Hargeysa ka bilow ilaa iyo Dirir Dhabe garanaysaa wuxuu ahaa in asagana details markeeda loo fariisto ayay ahayd markii hore waxaan rabay inaan kulli iswada raaciyo Samantar baa ii yeeray wuxuu yiri kuwa xagga Salxaan baa sameynaya iska daa war Salxaan waxba ma oga alle asaguna haddii astronomiya laga hadlayo Samantar astronomiya haddii laga hadlayo ilaa inuu Salxaan kusoo dhex tuuro ayuu jeclaa مساسبة لا مساس أنا وحبك ما قوانين وهذا هل يرجع ما أسنقرين ما ديارين عاز تي حاجة كفرتها هاي صدق هي لواتنك جولاي تضواتنك كل يسقال بقول يستبيس تضواتنك أيام كنا قاعدين قال جدود واي عيدك يوم مرة iyadoo duriiskii aan sidin ما full baahad markii hore waxaad geliseen qaar sidii gobonimodoonka taas waa iyaga ugu qalday oo iyaga watay maaragtay waana ku qasaarnay saraakiil badan baa nooga leeyahay oo qayma leh fucking kan oo nin ugu horeeyay Axmed Teersa la dhahayo Faransa ka soo baxay oo weel barbareed ah horin xuma inta loo dhiibay la yarood goday la gal gobonimodoonka war ka daaya waa lagu soo farageliyay qorshahaagina lama fulin markay arkeen in raggeena ku baaba'ay waxna ayaan tirin markaas loo soo noqdo qorshihii loo soo noqday hadda waa maray rag noqday waxaan maqlay markaa sheekada dhacday waxay ahayd raggii adoo kala ahaa saraakiisha askartoodii markay iyagoo aan diraysidan oo qori xun la cararaya ama ciidan aan tababareen wata raggii badankiisii dhinteen in dib loo soo noqdo la yidhi sheekadana ma hala joojiyo ama hagaagka loo galo maxaa ka jira arrin maya saas weeye anaa eri waxaan ku diray geele la yiraa maaragtay oo chief of staff-ka naga aamusan leadership-ku wuxuu raba samee leadership-ku waxay raba war leadership-ku hadday وقت سمينا يعني أنا ما كن راعيه مركا ديسفتيستا يور نعم أراد حاجة يسكون مغيق للرجال مركا سوى استعجل أركيا اللي روا ورمحيا هذا وحي بلنك يا ما حنك بلن هل السنة يبركور معانكو بلن هل كي تاجنت هل كي سوى ساكت هذا كذا كانوا وحوق يا ملك قال لي سوان تريد أيضا وحوق بحي شبريال ما هالله أنا يا سجاس كوكعنا بحماسيات صورة هذه قرطة شاع كون شبنا يا روبحش ورشبنا يا ما هذا الشاع شال ما حوينا أنه هذا كان كل رأسنا وراني وحلاق هذا يعني كانوا وكهذا يا بيت وكهذا يا أيوه وحشاقة أنه هذا كان كل شبنا يا روبحش شبنا يا لوديو مركي دنبي هذا هالكاس إن وحنا نوقت إن لقلا عيدك حاجات كذا قاعدة عيدك يوري الجدود عيدك يوري صدق ما أنا كذا قاعد وحوي صدق يلا واتني جولاي كن
1977 saas weeye marka qaybta 21 waxay ka dhaqaaqday balanballe meelaya balanballe ma balanballe inta soo xuduudu saaran yahay balanballe inta ka dhaqaajinay maqrkii baan dhaqaajinay laba meelood yar oo nasasho ayaan u sameeyay oo isku tiriyaan yaa wata ciidanka cabdicaruq nin la yiraahdo gaashaan la saraa oo meesha ka soo baxay halkii ka imid ka yimid oo aad u fahmaya faahim oo dira ayaa wata ciidanka cid ku qabsaday markii dambe Soomaaliya markii dambe loo dhigay iska marka wax qaribayo niba meel ku turtuuray oo dad badan waxay u yiraahdaan military naf loo wax kala garanayo ma hayne adoo hadda jaamacad ka soo baxay no waxa ahaa wala garda ma aha beentoodu way wasaq ka dhashay lima waxba ogeynaa waxa sheega faroosu ka soo baxay halkaas ka soo baxay markii hore wuxuu ahaa saraakiisha xafiisyaalka iyo ka shaqeeya ee waxyaalaha booliis uu soo ahaa jiray oo isku meelaan ka nibadba laakiin absolutely wuxuu ahaa nin dhisan oo baashi fahmay isaga ciidanka watay way shantii iyo barkii aroornimo ayay ku aruureen meel qabri daare 5 kilomitir u jirta hal baabuurna kama leexan waxna kama jibin baabuurta wada cusubta afweyne markaa shantiiba u yimid asoo iyo labadii laba shibanayaalka u baashay marka ayaa gaalada maraya halkaas hadda taagan yahay halkaas taagan yahay sax hadday taagan yihiin kaasoo yiri dhaqaaji weerar dhaha ma jirtaa eriso nimanku taangiyalkina naftadii waa laayay 500 kilomitir ay socdeen ay sii socdeen naftadii waa in nafta lagu shubaa baabuurta jiidayaalka madaaficda waa in goob loo sameeyaa oo maaragtay saan waa in la sameeyaa ma garanaysaa waxaa jirtay jabad gobonadooda meesha noo joogtay cali xuseen madax ka ah cali xuseen hays arkeen ninkii iyo ninkan hays arkeen cali xuseen inta darkii ka dhigtay jabad u dhigtay way hays arkeen oo maaragtay wixii hal la qorsheeyo markaasuu yiri ma jirto dhaqaajina war hadda see lagu dhaqaajinayo maba socotay shidaalba ma hayaan nimankii taangiyaalkii meesha weerari lahaa bar shidaal kuwa jiree madaaficda soo ninku inuu inta rug samaysto meel oo garbasan wixii dajiyo soo arko fiiriyo yira nin dirsado nin baa loo diraa sargaal oo meesha inta taga saxa xagga urid yiraahda ma 13 kool inaad ku saamiso waxa weeye midda u horeysa midda labaad oo in lagu dhifto bartanka ninkii saxi lahaa meesha wali tago ma batagin hiriiri aniga asag كيفان وريا هدر وين هدر مركزو أنا كليان هذا كرا أيهم ما هذليان رفونية راديان كود هذلينو محمد سيادي مرة واني لا مقلو أنا كليان هذا كرا أنا كان لكي مركان أركينو تاجن يوسف كنا يركون تسمع واحد شيء واحد شيء سو ما دافعين تنقلك واحد شيء مركزان مركز دور سان مركزان وريا مركز تالي واحد سيسا نص ساعة أنت تنجيد الشدار كشوا مدافع ذنا الرب دجيو هيوات أيوة دقق ورا دقق نما مقليان أيوة دايرين تا نما مقليان ويا أنا هذا اللي وير رجال على مدح وير وركي وارد هذا وحكر هذا تيبا وواحد شيء جيه مقالة إلا دحير باكا سكيس أنقول ما نقال ما أوجد وقبر تاري مركا يا وقبر تاري iyo godayna warkeedan gali doona qabri tahri way waxa laakiin cali xuseen uu ka sii horeeyay meeshu jooga wada inay wada hadlaan la rabaa oo ninku u sheego oo yiraahdo meeshaas waa saas ما سجى يلا أفغانية كوكرة شبنيال كده ماله وفهم يا سوانتر وعن شيء إنه سعيين لكن ما كل عينه يرادو شبنه باش وياك مركل القاضي دح بقى كسر كيسة دح دي تانجو ما وقتها مركل صعوده وحي صدر متر كسر كيه وبتشيله مرت ويسون اللي يراده ماركو
say wardayeen dhixdii ku tageen qab afar baa gadoontay intii kale ka joogsatay markii la arkay markaa afar baa gadoontay waxaan tagay Cabdaalo baroor meeshii la fariistay aniga kaliya maqlay markaas aan fiiriyo mawjada saasan dhacdaa war ka leexo meesha ka leexo dhinac kale ka gal waa yahay hada xaqi kale ka wareegay afartii taagi wari meesha ay taala hal aana yaa taangi rogmado afrika dhan ma rogi karto halkii bay wali yaalin fiil iyadii kaana xoogeedii ka soo horjeeda markaa ay qabardaara ku jira intuu leegi ciidan xoog laha joogo guud laba guud saddex guud waxay ma qanaya dhoo wixii oo dhan waa ku soo jaway madaaficdaas loo rakibay daahir in dhaqasho mid la yiraahdo ayuu si fiican u yaqiinay madaaficda ayaa wata godkooda uu galay godkooda kundi shamiruto 15 daqiiqo markuu ku lisay ay ka soo baxeen godadkii ayagoo kala yaacaya hadda qabqabta ka dhacday qabqabta jabadii xaga ayagoo xaga u inayso ku dhigdhigay meeshii ku wada goorgooraan ogaadeenkii qabridaar waa qabsanay goday idikoo jabhada maya markaan waa ciidankii anagu reedio muqdisho waxaanu kala ahay gobonimo doonka Soomaaliyeed ee galbeed baa qabsaday ma jiro naguma yeelan markaa ciidamadii baan anagu idin arkaynay inaad ciidamadii tiin kumaanaan dhici karin haddana inuu raxna ciidamay ahay intii hore markaan kula gobonimo doonka markii la tagay aniga qarri jiqood waa tagay waxaan tagay meeshan lagu leeyahay ceel ka rey waan tagay anoo dhashibna qaba oo waxaas ku dhex jira marka laakiin markii dambe ciidanku ku galayay waa la cadaystay laakiin uu diiday ciidan ma gelin ciidankayga ma aadin waxa soo dhahay waa intaan sheegay weyn anagana beenta la noo diro waxa kala weerarta anagana beenta loo dirto ma anaga ma haban marka fiiri dafku bax dawladda yaa la arkaya taangigii oo taargadii wata la arkaya T55 orday T55 na waxa la keenay waa goday ka waran iyadana maxaa ka dhacay goday maalintaas halkii labaad ay ku xigtay bay Soomaa maalintii labaad ay ahayd maalintii labaad waxa dhacday dayuuradii baa caburiyay goday raggii ugu fiicnaaba lagaga laayay horta waa meesha waa ninku Teersa ku dhintay Axmed Teersa meesha ku dhintay isagoo gobonimo doon camal ah laakiin markaan ciidan xoog laha la geeyay waxaan geynay xataa bateriyadan BM ka ahayd waxa watay nin la yiraahdo Abuukar Aftooji Abuukar Maxamed Liibaan janankaas watay markaas korneyl maalintii hore dayuuradihii baa caburiyay xabashada ayaa caburiyay Axmed Teersa markii la dilay yaa ku Cabdilaahi Askar wuxuu ahaa Cabdilaahi Askar ma xusuusto meel uu joogo markaas kabtanadii ka hooseeyay maya waxa ku xigay nin cirro la yiraahdo Cabdilaahi Cirro oo ma jeerteena ayaa ku xigay oo taliyaha ku xigeenka gaaska fadhiyay meeshan Bakol oo xudur ayuu taliye ka ahaa Axmed Teerso kanuuna ku xigay labadoodii baa la yar socda labadii meesha lagu dilay ma kii ma jeertay Axmed Teerso la dilay Axmed Teerso halkaas ku dhintay Allah marka maalintan oo ku leeyahay 23 July goday dayuurada caburiyay waa la qaban waayay maalintii ku xigtay ayaan dayuuradii waxaa dhacday hogaankii dayuuradaha malaq iska ahaa balaaya alla kuridku bali Doogland fariisto bali Doogle aniga waxaa taliya saldhig ka ah mid la yiraahdo dabla pilota nin la yiraahdo oo korneylaha ka ah hawada goday ayaan ku lixdii markii laga bilaabo ilaa iyo maalintii maqribkii mar walba laba dayuuradood meesha ku haynay oo ku deereegta
oo kuwii say kuwii u arkaan xabashida ma ayan soo dhaqaaqin markay arkeen dayuuradahan meesha dul mareegaya labalabaan isugu bedelna labalaba meeshaaba fadhiyay torra markii meeshaas oo qiimo weyn noogu fadhida goday ma aragtay saldhigga ugu weynee ciidanka Ethiopia ciidanka cirka ee Ethiopia Soomaaliya Israel baa dhistay baa loo jeedaa maya German East Germany baa dhisay may West Germany baa dhisay West Germany baa dhisay waay oo xayl salaasi u dhisay waa equidistante fiiri equidistante waxay u ahayd gaalkacyo iyo Hargeysa iyo maaragtay Baydhabo iyo afar shan magaalo ay equidistant u ah oo dusha ka ilaalinaysa macnaha masaafada intaas oo mid walba u jirta in isku mid ah waay ayay ku jirtaa waa bahal meel strategic ah laga dhiso West Germany aa dhisay imaanka Allah ka qaaday what maalintaasaan iyadana qabanay 24kii saasa horta dhinacii 24kii July 24kii gudub baad qabatay qaban adii idinkii ruushku goorma iska hortimaadeen goormaadee waxaanu iska hornimay markii ma aragtay ayagoo indhahoodu shan yihiin ciidamadii dareereen dayuurada la siiyey أنا كسور ريجي قيبة نور بحندي مابكي يقرالكي يوقتكي يمشوا concentration كجيل لا يحيدنا هي فراح كساري قالت روش كذا حكي تكتكي وأنا فيرنا هاي ويتطور يعني أنا طاونا يعني مركي عندما تجي نسكسر دقائق حمر يسكسر شوية مركز سفارة دي يوتجاني عيدك نكى عيدك هاي مية ولا إذا كنا أقل مع السلامة والوكالة شولاي بعد مرة صار مركب شولاي بعد مرة هنا وحل الربيع وحل يري هلا تي قيبتي مرحلة دي الله بعد أو هرجيس إلى قبر داري أيها اللي مركب هلا مركز محاش هذير ومية قرشي هرا لو درين لو قام درين على إن كانت ديري ويري صحان باصويني ورسل على معه أبي ويري أنت كبودي ما يا تالي وحن كتب وحوشي وقرواي مركز اللي تك أرد هدر لو صدري أرد صفر اللي هدر حرحرين دقح بور دقح بور أي ما رحت ما الله الرصاص كل شويين صار ما أيام سمين وحار دراوشتي باكم مرتي دراوشتي marka dhinacaas halkaas horta qorshe xumo iyo fashal halkaas ka dhacay way waxa la yiri leeyahay adigu horta bal xagga mar hada meesha waxay u baahnayd waa intaas oo ciidana koow raaci labaad oo lughayada ganaa oo maaragtay aan lahayn gaadiid ay ku socdaan oo adiga ma garanayso tababarkooda uu yahay almost 50% waa gaaskii koowaad halkaas ciidan la dejiyo lughaya ciidankaasna waa laga daba keenaya dayuuradihiina dirnaba iyo cayaar maaha dayuuradii xafaarada iskeenay awalna meesha marka la qiimeynaya ciidanka waxa kaliya oo tababar full training qaatay waxay ahaayeen ciidamada cirka ee xabashida kuwan uma dhawaa karin saasaana qoran in maaragtay ciidan adag inuu ciidan adag yahay markaas in frontayaal badan lagu furo maaragtay waa 12 dayuuradood oo lix ay tahay F5E taas xumayd F5E marka waxa qorshuhu wuxuu sheegayaa in frontayaal badan laga galo adigu dispersion marka warka ku hayo tirdaba qabsatay saacado yar oo madays sidee camal ciidanka ugu adag ee galbeedka ah adiga watay soo xudheen
ciidanka adag ma ahayn midka ugu adag laakiin ciidan adag buu ahaa hadduu heli lahaa support waa confident baan ahaa in la qabo rag la yaqaanay oo caan ahoo xagga militariga ku fiicnaa oo saraakiilaha iyo gaaska ururadaada watay oo ay ka mid ahaayeen kuwii hore ee berigii hore la tababaray cadaadle iyo joogi jiray raggii aad hore taliyaha ugu ahayda oo airportka Diridhaba iyo galay magaalada Diridhaba meelahooda dibna looma arag iyaga laftoodii meeshii waa lagu qabtay meeshii si ku dhacda garan maaye ma farsamo ma xaggaa ka timid baahay maya waxay noqotay ma adaa ee taalaha maxaa dhacay kulli eed waa la wada leeyahay anigu kuma dhahayo waxaan ahay ka saliim ma ku dhahayo markii waxa dhanba ninkii dhalaan ahay jinniga dagaalkan iyo waxaan markii eed ka saliim ma ay ka saliim ma ay fiiri markii la ciidamadii aan in yar dib u noqday markii la ciidamadii galeen hogaamadii lama socon ilaa meel bowdahan ku soo xarxareeqnay way la qabsan waayeen sidii sabaraayiga loo sameeyo xaruntii dhexe iyo ciidamadii sii socday way isla qabsan waayeen nimanka way garan waayeen wuxuu siday u socoto waa xaruntii dhexe madaaficdii taangiyaalkii rasaastii saadkii wixii oo dhan waxaa ku dhacay confusion ayaa ku dhacay confusion baa la qaaday waay marka midaan lagu leeyahay dhinacaas confusionkaas guudoo jiray iyo iyadoon la qorshayn ayaa isu helay meeshii baan tagnay waxaa la reebay 12 August in hawsha la galo